الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد waxaynu ka bilaabaynaa aayadda 34 suuratu al-anfaal. قال الله تعالى إلهي باوحر سبحانه وما اللهم حاوسنا ذي ألا يعذبهم الله إلهي أنو عذابين وهم يقوا يسدون عن المسجد الحرام حرم كي إلهي مساجد كي حرم يقوا هرشوغة وما كانوا أولياء مراها كوا حكتوا يا أهل إن أولياؤه مساجد كعدة مسؤولية دي سيح الكيس قاضي يسمى يهانين إلا المتقون كوا إلهي كعب صدموا يعني ولكن أكثرهم لا يعلمون انتو ضبضان قالوا ما قرنا يانا مددكوا وما كان صلاتهم عند البيت قال ذا تكشدوا ما يهانين حرم كأكتيس أي كنت كذا مسجد كا إلا مكاء فوري يو تسطية صعب قراع وي فذوقوا العذاب قال هذا إلهي وحول عذاب كالأدمية بما كنتم تكفرون قال لماذا سمين يسين درادين إن الذين كفروا كوي قالوا بينفقون أموالهم حوله ذي بحنيا ليسدوا عن سبيل الله شدك حق آسي أيدتك وقهر شوك سدان فسينفقونها حولها ويبحن دونانو ثم تكون عليهم حسرة وحان يكون قندون تامرقو ثم يغلبون والله أتكان انتا كدي والذين كفروا كوي قالوا إلى جهنم يحشرون نار جهنم الله إلى هذا الله صوتبي والله صورور ليميز الله الخبيث سيلا هي وقصع قال كحن من الطيب قفك مؤمن كاسي وقصعه والله بضعه كالساره ويجعل الخبيث كحن قال كأبو يلد دون بعضه على بعض بركة كرو طش كساري فيركمه مركاسو يسوقين دونا جميعا إساق أردن قال ذي أردن اسكو أرورينه فيجعله مركاسو يالي دونا في جهنم النار تليلا يقو استول بحيبو هلكا كقري أولئك هم الخاسرون كوا سوا كوا قول درايستيبو لهاي آيات هوري لهاي وحكسو إلى عذاب ما ينبي محمد واديقو نحجوغا ومضى ومحان له عذابين بإلهي عذاب كان للديدي وحوي كي الدنيا ده عام كأها لكن عذاب عام بانوتشي ده عام وما دورنا كوا ذهب سدو أول وذا بابيو لكن عذاب يجا قال هذا وقارة هدي الدنيا ده تهي هدي آخرته لبدا بوشرية لبدا وكل عدونا ويا وحي متيستين وحي عذاب قفك وكم متيسلها ده بيت الله الحرام كي بيدتك كورجوغا كيكو عبادي سنيي يكو كيكو عمري سنيي لبضوا وكورجوغا waxay noogsoonay nabiga kaleey salaatu wasalaam sanadii lixaad isagoo horkacay kun iyo dhowr boqol asxaabta oo umro u socdaan oo ay culba ahayn oo xoolihii la qalay ay wadaan ayay ka hor joogsadeen nabiga iyagoo ismaqashiin iyo ismuujin u jeeda marka waxayna halka ka noqo hadal dheer kadib heshiis buu nabigu la galo halkii buu ka noqday waxay taasina ka ahayd canaad iyo diidmo dadkii ehelka u ahaa xaramkan oo rasuulkii ilaahay uu horkacay awliyadii ilaahay ay yiraahdeen fiisama haysataan halka ka noqda sanadii toddobaad buu markaa nabigu soo umraystay umrada loo yaqaan umratul qadaa halkiina uu ku xalaaloobay sanadka lixaad wama kaanu awliya oo dabada ka wado intooda badan ma kana ilaaqun baa loo garaaca inta badan dadku ma haysaga ilaahay uu siiyay waxay u isticmaalaan fi muharabati illaahi wa awliyaahi wa diini laakiin ilaahay wuxuu u ballan qaaday waxa ay bixinayaan waxay la doonayaan inaanu ku hirgalayn maxay la doonayaan
yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah dadka inay diinta kaga saaraan iyo dadkii soo geli lahaa inay ugu diidaan iyo baadilka inay ku faafiyaan iyo inay dadka diinta ka didiyaan ay ka waswaasiyaan ay u bahalageliyaan hadafkoodu waa intaa laakiin ilaahay wuxuu tilmaamay waxa ay bixinayaan sidii ay ugu tala galeen inaanu noqonayninoo ilaahay baabiinayo kaydkooda xaqa ilaahayna uu soconayo murugana ay ku noqon doonto adduunka murugay ku noqonaysaa maalkii ay bixiyeen markay ujeedadiisii waayaan waa murugo aakhirana waa murugo hadday islahaayeen xaqa ka adkaadana iyagaa laga adkaan buu ilahay uma yuglabuun marka adduunyadana waa guuldaro aakhirana waa naar labadaasa isku dhici doona adduunka hadda gaaladu ay u baasgareeyaan ama diinta waxaan mishanka la yidhaha diinta kiristanka faafintiisa xoolaha gaaladu ay u dhiibaan kaniisadaha iyo raggooda ee lagu faafinayo diinta kiristanka marka aad dhegaysato balaayiin boqolaal milyan wax la yaab la weeye midho ka soo go-ayaana ma jiro nimanka boobabkaa ku raaxaysta siday doonayaanna u isticmaala marka taasina waa taa ilaahay uu sheegay subxaanahu wa tacaala kaydka awoodeed iyo kaydka ama shirqoolka adduun ee ay bixinayaan sidii ay ugu talagaleen hadduu u socon lahaa waxbaa laga arki lahaa laakiin ilaahay baa fashilinaya ilaahay wuxuu tilmaamay marka uu cadaabayo kuwaas aakhiro waxaa kala bixi doono maalintaa kala muuqanaya qofkii wanaagsanaa iyo kii xumaa liyamiiza allahu alkhabiisa min aayib qolana halkaa midigtuu ilaahay u kaxaynayaa jannadu ku casuumaya qolana bidixdaasaa loo kaxaynayaa naaruhu ku xaraynaya liyamiiza waa kala soocid weeye wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun sida idaha iyo riyaha loo kala sooco dadkii way isdhex qaadayaan oo isku dalbayhaan oo isku tolbayhaan oo isku meel bay joogeen wamtaazuu baa leeyahy kala soocma ayuha almujrimuun gaalay dhinaca u baxa eray bixinta qur-aanku ina barayaana waa taa kana khabiis baa la yidhaha kana ayib muuminku waa ayib gaalkuna waa khabiis muuqaalka ay gaaladu leedahay markuu ilaahay ka aargoosanayo cadaabkiisa gelinayo xusayo wayajcala alkhabiisa bacdahu calaa bacd fayarkumahu jamiica fayajcalahu fii jahannam intaasuu ilaahay tilmaamay iyagiibuu isdul saaray oo iyagoo dhammaystiran buu ku cidhidhiyey naarta manaa waxay tilmaamaysaa halkan si naxariis darro ah ayuu ilaahay naarta u gelinayaa iyadoo saxmadaysan oo iyaga ka buuxda oo lagu cabayn doono khasaare kaasaa la yidhahdaa baa ilahay ui subxaana wa tacaala ulaaئika hum اlkhaasiruun mustafaadaadkeenu ka qaadanayna ayada waxaa ka mida qad tata'aharu اlcuquuba laakiin waqad ta'ti waxaa laga yaabaa cuqubadu way dib dhacdaa laakiin ma baaqato wamaa lahum an laa yucadibahum اllah maxaanu ilaahay u cadaabayn wuu cadaabaya marka qad yuhmil اllah walaa yumhil allahu yumhil walaa yuhmil ilaahay gaalkii wuu kaadinaya laakiin ma ilaawayo kama tegayo in allaha la yumli liلظaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflitu nebi maxamed salى اllahu alayh wasalam wuxuu leeyay daalimka ilaahay wuu kaadiya wuu seeto dheereeyaa ilaa dadka qaarkood ay yaabaana yidhahdaan war mala isagaaba hagaagsan sow tan la qabanba waayey sow kan wada uun xumaantii markuu qabto ma nuuxsada buu ilaahay gaalkaa markuu ilaahay qabto ama daalimka ma nuuxsada ilaahay adhaxdu ka jabiyaa waxaa halkan ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala u dhowaanshaha xaramka loo dhow yahay waxaa jira waa u dhowaansho macnawiya iyo mid xisiya u dhowaanshaha xisigii waxa weeye kan dee ay dhex taagtaagan yihiin gaaladan haysta goobtan kaa laguma xisaabtamo qof aan diin lahayn oo meeshii haysta laguma xisaabtamo laakiin u dhowaanshaha macnawigaa baa lagu xisaabtamaa ee caqliga iyo cadaaladaba waafaqsan kaasina waxa weeyaan kaa ilaahay uu sheegayoo wax alla waxa muqadasaadka ah iyo goobaha ilaahay lagu weyneeye xaqa in lagu caabudo
ehel waxa waa awliyada ilaahay dadka iimaanka liya la yaqaanka ayaa ehel u ah marka sidii looga xoreeyay xarameynka gaalada ayuunbay yuhuudana in qudus looga xoreeyo oo ehel uma aha iyagu markay islaamka ahaayeen yuhuuddu dee kuwii camaaliqada ahaa waaweynaa ka saara baa leeyihi markay iyagu imika gaalo noqdeenna in faraha laga faramaroojiyo weeye sidii cumar ibnu khadaab sidii salaaxudiin oo markaa macnaheedu waxa weeye muqadasaadkii oo dhan buu baytullaahi alxaraamkani u taagan yahay walaa masjid walaa xaram mid walba waa inaanay ehel u noqonin waxaynu ka faa'iidaysanaynaa wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaa'an wa tasdiya waxaa la yidhaahda almukaa'u watasdiya yaduru lquluuba walaa yanfacuhaa heesaha iyo miyuusiga iyo waxaa la garaacay caatifada iyo dareenka dadka kiciya ama khariisadooda iyo baahidooda iyo hamadooda quluubta wuu dhibaaye uma raaxeeyo dadka qaarkood waxay yidhahdeen heestan macaan ku soo dhowaada dhegihiina ugu raaxeeya waa raaxe maaha waa lagu rafaadaya qalbiga had iyo jeer waxaa jeceli wuxuu sheegayaa inuu yahay qalbi silan waa qalbi dhaawacan waa qalbi xumaanta dhadhan u leh idan markaa waxa wanaagsan ayaa quluubta had iyo jeer culoo safeeya laakiin waxyaabaha xune la dhagaysanaya ee la garaaca had iyo jeer alaabta shaydaanka ah yaduru lquluub maa jacala allahu lirajuli min qalbayni fii jawfi laabina laba ula ama waxa wanaagsan baad quluubta ku safaynaysaa ku curaysaa qur-aanku kow ka yahay ama waxaan ilaahay uu tilmaamay inuu dadka dhibayo ayaa dhegahaaga iyo qalbigaaga usii daynaysa marka dhagaha iyo quluubta ha laga ilaashado alaabta shaydaanka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa aayaadka ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illaah gaaladu xoolahooda waxay ku bixinayaan si ay dadka jihaadkiiya uga hor joogsadaan diinta la faafinayo si dadban waxa ay aayaddu u dhiiri gelinaysaa dadka mu'miniinta ah iyagu jihaadka xaqa inay xoolahooda ku bixiyaan bal gaalkii baa lagu yidhi baadil wadaha ahaa xoolihiisiibuu ku bixinayaa baadilka dee adigoo xaq wada maxaad xaqa iyo hirgelintiisa iyo faafintiisa xoolaha ugu bixin lacda waa inaad ku bixiso marka tani waxa weeyaan almu'minuuna awlaa bilinfaaqi fii sabiili illah bay u taagantay dadka alla yaqaanka inay jihaadka iyo meesha xaqa ah wax ku bixiyaan iyo diinta ilaahay hirgelinteeda iyagaa mudan sidaas iyaga noqon maayo waxay bixinayaana kayd buu yahay ilaahay agtiisuu kayd u noqonaya waxa ay bixiyeena khayr kale midhihiisa adduunyadana way heli doonaan aakhirana way heli doonaan uma takuunu calayhim xasratan uma yuglabuun waa bushaaro ilaahay uuna siinayo waxay bixiyeen waxba yaydin warwargelin waxa ay bixinayaan ee faraha badan waxba ha la yaabin kullu camalin yucmalu limucaadaati illaahi fama'aaluhu khasaara wax kasta oo loo qabto iyadoo ilaahay iyo diintiisa lagaga hor imanayo allah inoogu bushaaray inuu khasaare yahay waa khasaare ulaa'ika hum lkhaasiruun marka shayganiba haddii aanu daran la ahayn ee dagaal lagu soo qaado uu yahay ilaahay iyo diintiisa hadday aqoon tahay iyo hadday adduun la bixiyo tahay iyo hadday awood la isticmaalo tahay ku bushaarayso ilaahay baa tilmaamay inuu waxaasi fashilmayo ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض قفك مؤمن كان مقعيس طيب بالايدا قال كان خبيث بالايدا مركا للخبث أنواع حمانته والنوعيه ووح معنوية هي وح مغضبة وإلاده حلاشة إلهي طيب وكتل مامي حارانتنا خبيث با وكتل مامي قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وحالكا إنه كفهمينا dadkii in la oran karo hebelna waa xalaal hebelna waa xaaraan dadka xalaasha iyo dadka xaaraanta ila waa kane waa xunkaas ilaahay inuu xun yahay buu tilmaamay marna quraanku nijaas buu ku tilmaamay innamal mushrikuuna najas shirkiisu uu nijaas ahaanine de wuxuu xambaarsan yahay oo dafiraad ilaahay buu dafiray ilaahay ayuu dafiray khaaliqi makhluuq oo dhan hirgeliyay ee ahaysiye maamulayay buu dafiray
sidaa darteed waxa uu xambaarsan yahay baa xuno xaaraan buu noqdo waa xaaraami waxa aynu ka faa'iideysanaynaa aayadda ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ما أشد الخسارة الذي هو في الدنيا والآخرة خسارة مركو يسوتغو خسارها وقدر نواه كأدوية آخرة بك هقدع مركا النبان كان وحبا وما مرحنو أدون كي وحيا بحيانا إلهي باك لطوري آخرنا عذاب باو ديارسن halkaa waxaad ka aragtay fashilaadii weyneed inay ku dhacday intaasoo arrimood waxa weeye xaqaa'iqa ilaahay uu noo sheegayo innaguna ay tahay inaynu ku qanacno ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu nagu qanciyo wuxuu inoo sheegayay bishaaradiisaba wallahu aclam